وكما قدرة ظاهر عقا maxaa ka taqaanaa heesaa hirgalow qaaday fanaanada weyn ee qadra daahir cige ilaahidu jidbay kugu riday libantuwa maysaf karana hooyadii jaceelka ee hobolada waabiri xidigtii lama helaanka ee mar lagu arkay fanka Soomaaliyeed wax badan oo ku saabsan taariikhda xidigtii hobolada waabiri qadra daahir cige ayaa muuqaalkan kula wadaagi doona balse marka hore inta muuqaalka guda galeen waxaan ka codsanayaa fadlan inaad muuqaalka like saarto saaxiibada kalena aad la wadaagto sidoo kale bogga Samakeen Filmsna aad ku soo biirto si xogo badan aan kula wadaagno qadra daahir cige waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa sanadku markuu ahaa 1957 halkaas ayay ku barbaartay waxana ku baratay qadra waxay fankaasi toos ah u soo gashay sanadku markuu ahaa 1974 isla sanadka qadra waxay ka mid noqotay kooxdii waabari halkaas oo heesaheeda ku hirgelisay dunidana ay ku baratay qadra inta ay fanka ku jirtay waxay ahayd hobolada fanka ugu magaca weynaa 1974 waxay ka qayb qaadatay riwaayadii ugu horeysay la oran jiray dab jacayl kariwa curiteedana uu lahaa abwaan xasan ganay allah u naxariisay qadra daahir cige waxay ku caabaxday heesaha jacaylka ah oo ay kaga dhex muuqan jirtay fagaarayaasha fanka waxaana قامسر حيد كذا يكسو جيدتي كمانات Soomaaliyeed qadra waxaa lagu xasuustaa inay ahayd hooyadii jaceelka ee brismaadka qadra daahir cige waxay ahayd mar la arag ilaahay fanka Soomaaliyeed ku muunadeeyay waxaana la sheegaa waayaheedii fanka inay jaceel xad dhaafay u qaaday hobalkii weynaa ee Axmed Cali Cigaal qadra daahir cige iyadoo ardayad ah waxay qaaday sanadku markuu ahaa 1972 hees uu lahaa Cali Ibraahim Iidle waana waqtiyadii tijaabooyinka ugu dambeeyay ku jirtay heestii ugu horeysay qadra ay qaaday waxay ahayd heestii afka lagama sheegto sanadkii 1974 ereyadana uu lahaa abwaan Maxamed Cabdi Weyrax uuna la xameeyay Saalax Qaasim waxaana miraheeda kamid ahaa شكتو أديقون جعيل رك أفكار ما شكتو أديقون جعيل رك لو ما أروح نادي أفكار ما شكتو أديقون جعيل رك أفكار ما شكتو أديقون جعيل رك لو ما أروح نادي qadra allah u naxariisay sanadkii 1975 ayay si wada jira u wada qaadeen Axmed Cali Cigaal heesta weedada hay celin curiteedana uu lahaa Xasan Cabdulaahi uuna la xameeyay Axmed Cali Cigaal allah u naxariisay qadra waxay qaaday sanadkii 1979 heesta la yiraahdo sheeko balaraay uuna sameeyay Cabdi Qafaar Cagoole laxaakana waxa lahaa Saciid Xaraawe miraheedana waxa kamid ah inuu beer jacaylo kalgacayl ku baayo hadalada baroorti boogaha damqinaya u ku baabay maqalay inuu beer jacaylo qadra waxay sanadkii 1976 qaaday heesta la yiraahdo allay baday jaceelka eriyadeedana uu lahaa Maxamed Cali Kaariye laxakana uu saaray Axmed Cali Cigaal qiyaastii sanadkii 1979 ayay qadra qaaday heesta la yiraahdo sidii laba walaalo ah curiteedana uu lahaa Cabdi Cali Weyd miraheedana waxa ku jira
qadra iyo rooraaye ayaa sanadku markuu 1978 wada qaaday heesta araggaaga iga qari ereyadana waxaa lahaa maxamed aadan dacar waxaana wada la xameeyey axmed cali cigaal iyo axmed nuur jaangoy ereyada heestaasna waxaa ka mid ah qadra sanadkii 1986 waxay qaaday heesta marti guulaan oo ahay curinteeda uu lahaa xasan ganay laxankana uu saaray awees goobe ereyada heestaasna waxaa ku jira heesta caashiqa ogeysiis ma leeyahay oo ay qaado qadra waxa ay ku jirtay riwaayadii xishood iyo jaceyl miraheedana waxaa ka mid ahaa ugu dambayntii heesaha ay qaaday Allahu naxariistay qadra iyagoo aan la soo koobi karin intaan ayaynu ka milicsanay waxaana kor u dhaafnay ku dhawaad 250 heesood heesaan oo ka mid ah heesaha kuweeda ugu caasan waxay qaaday sanadku markuu 1975 waxaana curiyay cabdiqaadir xirsi yamyam
waxaana laxanka u sameeyey axmed gacaynte intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaal kooban oo kaga hadlayna taariikhda iyo heesaha hirgalay ee qaaday fanaanada dhowaan geeriyootay ee Qadra Daahir Cige layligu biyuhu daadiya ilaahidu jidbay kugu rida libantuwa may safkarana libantuwa may safkarana labtu gacankii harsaday labtu gacankii harsaday layligu yuhuudaniya lahashadu sharbayka ida libantoa aysafkarana libantoa aysafkarana labtu magacalkii harsaday magacalkii